الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. برنامج إيه بر أما برون فرهيدة زايد يقاسي وانا ومين ونقبتا وحبرشا بسلا آني لسو قارسيسي قبردينا إقرأ جيلاني معلمينتي نوغو غيب قاتي توبركا كله وحان له وهذا يا مقعيقة يا مقع مامولك الدقمة براوة وحان آد أسود وين يا برنامج كان بر أما برو ما أنت وحين نوتها شرف وين مناسبة ولو قبنا معلمينتي ودودا كوبان قادنا إيه سيميناركا جارية لذلك السؤال ووحيقو إن شاء الله تعالى مسؤولك الله ما أنت فرحت إن ومدنا سوكو كرماها وأهم لو باهناي مدبنا دمنا أباهنا دواي رحمن محمد الشيخ وقام هذا علينا يا ولا شيء إني بروفيسور يقدك لكن أنا جامعة مداخل هتا نمبر 1 ay taagneed waxa la kara 0 ay taagneed hadana xoogaa yar waxa loo maleeynaa inay ma aragtay number 1 ma aragtay soo istaagi rabto waxbarashada waa horumarka wadan walba iyo dal walba anaga ka wadan ahaan degmada qaybihiisa kala duwan walow howlo kale ay jiraan howlo kale ay jiraan hadii ay naga soo gaaraan insha Allah sabab u sheegay mas'uuliyad dheeraad ay saaran macallin marka tahay waa bulshada maanta khidmada la qaadanayo waxa إن أديكم في ندك أسوساريس. xafladan oo ahayd mid lagu guddoonsiiyay macallimiinta shahaado sharaf training-ka qaatay ama tababarka qaatay maanta oo ahayd taariikhda 3 bisha 7 2021 xafladan waxaa ka soo qayb galeen qaybo ka mid ah maamulka degmada Baraawe xafladan soo qaban qaabiyay hay'adda bar ama baro oo ugu horeyso Dr. Iqra Jilani Abu markii ugu horeyso maanta nooca lagu qabto magaalada Baraawe sanad waliba ayaa lagu qabtaa magaalada Baraawe waxaana soo qaban qaabiyo hay'adda bar ama baro ayadoo kaashanayso wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dawladda federaalka Soomaaliya ugu horeyn kulankan waxaa ka hadlay gudoomiyaha waxbarashada degmada Baraawe Abu Bakar Nuur Sheekh kadibna ee loo qaybin doono iskuulaadka ee degmada ku yaalo ay noqon doonaan arday si bilaash ay wax u bartaan soo marka waxa laga rabaa inaan ka shaqeyno si deegaanka u hormaro saad ogtihiin waxbarashada waa horumarka wadan walba iyo dal walba anaga ka wadan ahaan wadankeena Soomaaliya marka loo firo dhanka waxbarashada aad u liidataan markaan ka sii gudubno ka deegaan ahaanna deegaankeena marxalad soo maray xagga waxbarashada laakiin maadaama marxaladaas oo dhan ay soo martay hadda si waxbarashadii aan u hormarino waxaa laga rabaa macallimiinta bulshada odayaasha maamulka iyo intaba qaybo kala duwan inay ka qayb qaataan si waxbarashada loo hormariyo idinka marka waxaad tihiin tiirka ugu adag waxbarashadaas iyo ardaydaas markaas la rabo in waxbarashada ay ka qayb qaataan laguna dhiirigeliyo soo marka shaqo badan aan oo taalo inaan hadalka ku dheereeyay marawi marti badan aan hala joogto insha Allah waxaan noqonaynaa kuwii ku dadaala horumarka deegaankooda aan noqon insha Allah waxaa kaloo hadlay kulanka gudoomiyihii hore ee maxkamadda degmada Baraawe Mr. Maxamed Cabdiqaadir Faqi الحمد لله وثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا وكهذا يا مقعيقة يا مقع مامولك الدقمة براوة وحان آد أسود وين يا برنامج كان بر أما برو sida loogu dhawaajiyay barnaamijkan bar ama baro wuxuu bilaabay bar ama baro sanadkii 1974 saan jeclahay wuxuu ahaa barnaamijkii ololaha waxbarashada Soomaaliyeed ee gobol ilaa degmo la gaarsiinayay dadkana lagu barayay farta Soomaaliga inta kadib barnaamijkan waa barnaamij aad u dhiirigeliya ummadda Soomaaliyeed xagga aqoontana ka taageera waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa macallimiintii 25 sano ka badan degmada Baraawe u soo halgamay taliyaha booliska degmada Baraawe oo u mahadceliyay hay'adda bar ama baro kala duwan gudoomiyaha maxkamadda ururka haweenka ururka dhalinyarada
madaxa waxbarashada ama gudoomiyaha xigeenka waxbarashada iyo marti sharafka halka sugan macallimiinta saxaafadda dhammaan wax ku salaamay salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maanta waxay noo tahay sharaf weyn munaasabadan oo loo qabanayo macallimiintii muddada kooban qaadanayay seminaarka ama traininka si ay maaragtay boorka isaga jafaan awalba macallimiintu waxa waaye macallimiintii bay ahaayeen warshadii wax soo saaraysay ahaayeen laakiin in boorka laga sii jafo traininka ay u qaadanayeen oo maanta halkan lagu soo gabagabeynayo insha allah sharaf bay noo tahay annagana waxaan diyaar u nahay annagoo ku hadlay magaca alaamaha amniga inaan kaalinteeda ka qaadano waxaan leeyahay bulshada reer Baraawe waxaan ugu baaqayaa inay ka faa'iideystaan fursadahan waxbarashada oo aan is leenahay yar iyo weyn iyo qof maxaa la yidhaahdaa qofkii waxbarashada hore u soo seegtay waqti u waayay kuwa hadda u baahan dhammaan inay ka faa'iideystaan fursadahaas qaaliga intii juhdi soo gelisana waan ilaahay baan aragtay uga baryaynaa inuu khayr siiyo waa u mahadcelinaynaa waa mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu gudoomiyaha ururka haweenka degmada Baraawe Faadimo Cusmaan Gaawo oo u mahadcelisay hay'adda Bar ama Baro gudoomiyaha haweenka ururka dhalinyarada ee fadhiyada dhammaan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu alxamdulilah ilaaha mahadda iskale fursadan uu iskugu keenay alxamdulilah mahadda Allahna abuura iskale waxaan leeyahay maanta farxadana umad la soo koobi kara ma ahan waa arrin loo baahanaay muddo badan degmada u baahneed waaye waxaan leenahay idii soo qaban qaabasay idii hel iska saartay idii jad gelisayna waxaan leeyahay waad mahadsantihiin wax badan inaan kala faa'iidaysan doono haddii ilaahay idmo garabkiina Allah galo ducaa idin haynaa waayigelina waa idin samaynaynaa si waalidiinta iyo macallimiinta iyo waalidka ay iskugu xirmaan cunuga meesha wax ka baranaya inuu ahaado cunug oo haatif ah meesha ka soo baxay marka imtixaanaad soo socda waxaan leenahay Baraawe inay ka aarsan doono degmooyinka kale maadaama ciil badan aan la saaxi weyno korka in la xuraayo macalimiintu waxaan leeyahay sanadkan inaa xoog saartaan insha Allah arday badan inaa soo saartaan oo la tartami doona soonka soo socda hadii Ilaahay idmo waana mahadsantii waan salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh gudoomiye ku-xigeenka ururka dhalinyarada degmada Baraawe Aamina Cali Suido degmada Baraawe barnaamijka Bar ama Baro ee la soo gaarsiisay gabadheena Iqra Jeelaani ee macallimiintii noogu qayb qaatay tababarka كله وحنا له ما شاء الله جهد بدن إدلال بدن كله سجاشن قفوت قفل صوت ترتمي أو جوش ما أنت برا وسوق جامي وحير معهن إخرج جيلاني أذي يو دتك كل الصعد وحنا لنا أذي ومهد سنتين أنا جو كوهد لايو أورور كدليرة الدقمة برا به كله إن شاء الله المها عن وحبرن المها عقونتا دتك دنتا ير عن وحي سنين كل دنكن إن كوعي جلينو شقدنا تهاي هدي عند الله يرانا هاي أورور كهبين كنا قرب كي فديسا إن شاء الله كما قابينينو أردينا براوي إنه وحبرتان أنا قاعد جعل إن شاء الله آدي آيات أمهات سنتين معلمين تكقيب قاعدتي برنامج كان بر أما برو آدي آيات أمهات سنتين إن شاء الله دذال بدن أيادي كي فدينا هدي عنا هاي أورور كدقمة براوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته qaar ka mid ah maamulada iskuulada Baraawe oo ka hadleen dareenkooda ku aadan kulankan dadkan ugu sharfay halkani ugu horeyso Iqra Jeelaani Abu oo madaxa ah hay'adda guddoonka waxbarashada maamulayaasha guddoonka maxkamadda dhammaan macallimiinta waxaan idinku salaamayaa salaanta ugu qiimaha badan oo ah salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu سلام كده برونتي وحن كسعداء سكولة دقمة براوي كرهان دكسي والي قانا لكن مقع وحن كهالليا ما ملهان مركه رأيت بأن أفرح سنة برونتي تدوض مع الموت التريننج مع المينتي اللي بسوا بدي ساكن أنا كان أنك كسر قريب قلني حفلة أن شرفت نلو وعي أنا جو معناها عن فيرنا إنه قاب كده ذلك جهد أد كلاسه بحيي شهادوين كي إن شاء الله إن كنا قلنا مرقاتي taas aad baan ugu farxeynaa mid xigta waxay tahay macallimiin runtii aad u tabaaleysnaa oo u baahnaa dhigjoojin ayaa maanta wax laga gaarsiiyay dhigjoojintii marka uu faraxsanahay degmada in badan waxa laga dhawaajiyaa waxbarashadii aad bay ugu liidataa marka ardaydaas oo dhan haddaan u helno waxbarasho meesha waxa ka soo baxayo uwad runtii wax baranayso oo laga faa'iidayo
marka qof walba wuxuu kusoo tashkiilin karaa ardayda waxa meelaha wareega oo dhan macallin walba hadda waxaa lagu qoondeeya 50 arday. waxaa kale oo baaq u jeediyey hay-adda bar ama baro macalin Jeylaani oo ka mid ah macallimiinta qaatay training ama tababarka oo ka hadlay kulanka. waxaan halkan ka salaamayaa ugu horeyn martidii sharafka leh ee xafladan ka soo qayb gashay ugu horeeyo jaaliyadda ninka ka socda oo ku xigo insha allahu tacaala mas-uulka baab madaxa hooyooyinka agaasimaha airboortka dhammaan maamulayaasha iskuulka dhammaan gabadheenna ama macalimadeenna iqra Jeylaani Abu ikhlaas ayaan ugu soo bixi doonaa insha allahu tacaala waxqabadkeenna waa arki doontaan. waxaan leeyahay degmada Baraawe maadaama hooyo ay nala joogto in caruurtii lasoo bixiyo oo naloo keeno wacyigelinta nagala qayb qaadataan dhammaan rag iyo haween aan loo kala harin insha allahu tacaala annagana waxqabadkeennii runtii aan laba jibaari doonno haddii allimdii ilahna gaarsiiyo. marka waxaa idin leeyahay waa mahadsantihiin dhammaan intii ka soo qayb gashay xafladan qiimaha badan leh iyo baab teachers dadkii noo keenay iyo agaasimaha ka socda hay-adda dhammaan waxaa idin leeyahay waa mahadsantihiin macallimiinta degmada Baraawe aad iyo aad idinku mahadcelinayaan. وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaa kaloo ka hadlay agaasimo ku-xigeenka airportka Baraawe. fadhiyaan ku salaamaya meeshan waxaa looga hadlayo waxay tahay waxbarashada degmada Baraawe sanadihii la soo dhaafay aad u liidatay haddana xoogaha yar ma aragtay talaabo aan qaadeyno maadaama sanadihii hore ee zero joogtay lama dhihi karo hataa number 1 ay taagneed waxaa la dhihi karaa zero ay taagneed haddana xoogaha yar waxaa loo maleynayaa inay ma aragtay number 1 ma aragtay soo istaagi rabto. ugu dambeyn Dictoreso Iqra Jeylaani Abu oo ku soo afmeertay Gaway oo meelo badan tataawanayo sida tan u dhici doonaa ardayahay wanaagsani waxbarasho loo aayiyo u istaagna aqoonto aqrinaya duruuste haddii saaqlaaq xumo hadba meel abaartiyo afilagaada iyo dagaal ibtila u joog tahay waa ayaan daray ogow ooraha kale oo dardaarana aniga ay idiin ishaaro ixtiraam macallinkaago ogolow amarkiisa arday dhibaato keeniyo ha noqon mid abaalaca innagoo isu duuban waxaynu nahay ubadkii la abaabinayo wixii dalkaan nahay ardayahay dhammaantiin ololaha cilmigo ila isku gaarnaye annagoo mid qura aan ka wada aflaxnay Baraawe Schools. Thank you. Mohamed Hussein Saeed TV-ga Som TV Soomaaliya xaruntiisa dhexe ee magaalada Baraawe.